kulliyadda Shareecada iyo Qanuunka ee Jaamacadda Muqdisho waxay ka mid tahay kulliyadii ugu horeeyay ee Jaamacadda lagu aasaasay. waxay jirtaa kulliyadda laga bilaabo 97 ilaa iyo maanta waxa ka soo baxay ilaa iyo 20 dufcadood. haddana dufcooyinka way isdaba yaaliin. ardadii kulliyadda ka baxay bulshada ay ku dhex jiraan waxay ka shaqeeyaan danta guud iyo danta gaar ah. qaarkood waa ganacsadayaal danahooda gaarka ay qabtaan, qaarna ummadda ay u shaqeeyaan. meel alle meeshii ay tageen dal iyo dibadda aad ayaa loogu ammaanay. kulliyadda waxa ay ku soo aaday oo la furay xilli baahi badan ay ka jirtay dalka xagga arrimaha sharciga. alxamdulillaah, run ahaantii wiilashii iyo gabdhihii ka qalin jabayna aad ayay ugu liibaaneen, bulshadana wax ayay u tareen. xaaladda hadda aan ku jirno oo ah cudurkan COVID-19 adduunyada ku soo kordhay, kaasoo sababay in isu socodkii bulshada iyo isu imaatinkii in la hakiyo si loo hakiyo fiditaanka cudurka. sidoo kale kulliyaddana waxay qayb ka ahayd iyadana bulshada guud ee dalka. fasalladii ardada isku imaanayeen waa la joojiyey. duruustu waxay ku qaadanayeen virtual classes, iyagoo guryahooda jooga ayay duruustooda qaadanayeen. waa lagu guulaystay alxamdulillaah, tajrubo fiican ayay noo ahayd. sidoo kale waxaa la soo gaaray xilli ay ardadu lahaayeen imtixaan. imtixaankiina waxaan ugu qaadnay barnaamijka fideenaha ay jaamacadda leedahay, kaasoo suurageliyey arday kasto isagoo jooga gurigiisa iyo goobtiisa in imtixaankii laga qaado. sidoo kale duruustiina ay halkaa ku qaataan. runtii coronaviruska wuxuu ahaa dhibaato weeye oo bulshada guud ahaan uu u geystay. haddana laakiin qofka muslimka waxaa la doonayaa arrin kasto markay qabato inuu ka raadiyo halkii xal inuu u raadiyo, inuusan iska fadhinin. marka waxayna bartay annaga muddadii dheerayd ee kulliyadda ay furneed daraasada si toos ayaan u bixin jirnay oo ardada classes ay soo xaadiri jireen. waxaan hadda baranay in aan ku dhiirano in ay macnaha ardada ay ku qaataan duruustooda iyagoo meelo kala jooga, iyagoo dibadda jooga xataa inay jaamacaddu ama kulliyadda ay ka tirsanaan karaan, ay duruustooda qaadan karaan. run ahaantii howl walba markii la bilaabayo waxay leedahay caqabado. haddii ay jiddiya jirtoona caqabadahaas waa laga gudbi karaa, wax weyn maaha. masalan anaga hadda waxyaabihii caqabadihii aan aragnay waxaa ugu horeeyey maadaama ardadeennii aysan hore ugu gelin in badan imtixaanada online, waxay u baahdeen inaan ku tababarno. marka sidii aan duruustii u siinaynin iyagoo maqan ayaan haddana tababarnay. waxaan u duubnay fiidiyoyaal ay fiirsanayaan, stebiskii ay raacayaan. markaan ku tababarnay haddana waxaan u samaynay imtixaan oo maxaa la yidhaahdaa tijaabo ah. imtixaankii tijaabada ay sameeyeen, haddana waxyaabihii ka hor yimid caqabadahaas ayaan ka hor qaadnay. alxamdulillaah, hadda waxay u galeen sidii iyagoo galaasaskoodii caadiga ahay jooga oo kale ayay u galeen. natiijadoodana markaan aragnay waxay noqotay wax macquul ah, sidii caadigii qof walba siduu galaas ku ahaa ayay macnaha ayaa noo soo baxday. guud ahaan ardada kulliyadda Shareecada iyo Qanuunka dhigata waxaan kula dardaarmayaa, maadaama hadda iyagu ay yihiin arday, hawsha iyaga u taallo waxay tahay inay ka adkaadaan marka hore duruustooda iyo wixii waxa laga sugayo inay wax ka keenaan. haddii ilaahay daraasada uu u dhameeyana ay ku guulaystaan inay muujiyaan daacadnimo meel walba oo la geeyo, meel walba ay tagaan, hadday noqoto midda danta guud iyo midda gaarka, inay noqdaan macnaha dad aamin ah oo muqlisiin ah oo bulshadan, lianna aabbayaal iyo hooyooyin iyo qaraabo ayaa wax soo bartay. bulshadu dhammaanteedna qaraabo ay u tahay, waa qaraabadooda, inay u daacad noqdaan. hadday noqdaan kuwa ka shaqaynaya danta guud iyo hadday noqdaan kuwa dantooda gaarka u shaqaysanaya, inay dadka u turaan oo u dhimiriyaan. sidaas ayaan kula dardaarmayaa ardada.